بسم الله الرحمن الرحيم saaka halkan wasaaradda deegaanka waxaan ku nimid booqasho amal village oo ay maamusho shirkadda amal rabo in guryo residential dadka degan laga dhiso marka sidaa ka warhaysaan waayadii dambe tan iyo intii wasaaraddan xilkeeda qabtay anugu iyo guud ahaan shaqaalaha wasaaradda waxaan aad ugu mashquulsanayn hirgelinta barnaamijka saamaynta deegaanka environmental impact assessment arrintaasaan u nimi halkan inaan madaxda shirkadda aan kala shirno wax ka weydiino dhismaha iyo qaabka ku wadaan iyo siday u wadaan iyo saamaynta deegaanka ay ku yeelanayso runtii aad baan ugu qanacnay qaabka ay wax u wadaan waxyaabihii ka dhindhinaana waan u sheegnay ay u baahnaayeen in dhinaca shuruucda iyo la maro waxaan aad u rajaynaynaa in arrinkan uu noqdo mid successful oo amal ay sidaan hore u sheegay ay uga qayb qaadanaysay arrimaha environmentiga iyo beerista dhirta iyo ay barnaamijka beerista dhirta oo qaadatay inay fulinta mashaariic mashruucan ay ku apply garayso sharciga saamaynta deegaanka iyadana ku apply garayso oo ay maaragtay la waafajiyo shuruucda u degsan deegaanka Puntland oo baarlamaanka Puntland hore u ansixiyay runtii aad baan maaragtay u soo dhaweynay sida sharcigu sheegayo waxa weeye shirkadda samaynaysa maalgashi ama company walba ama ha ahaado construction ama ha ahaado communication ama ha ahaado mid kale oo wax kala samaynaya xataa waxaan rabnaa inaan gaarsiino dadka guryaha dhisanaya xataa in la waafajiyo nidaamka si hadhow dhismayaashaas meelaha laga dhisayo aysan u noqon kuwa saamayn ku yeesha deegaanka sida daadadka iyo biyaha runtii amal aad baan u soo dhaweynay projectigan ay wadana waa mid communityga dan u ah runtiina environmental friend ah wixii ka dhimanna waxaan rabnaa in environmental friend aan ugu daro oo aan wasaaraddu wixii aqoonteeda iyo expertise-keeda ay ku kordhiso maamulkeeda sare runtii aad baan isugu fahanay saakalka shirkaan ku qaadanay presentation bay noo sameeyeen presentationkaasuna wuxuu ahaa mid na qanciyey wixii ka dhinaana waxaan rabnaa inaan ku darro hadduu ilaahayadno kadib shirkadda ay u doortaan inay u samaynayso environmental impact assessment iyo wasaaraddu ay ka wada shaqeeyaan halkan waxaan uga faa'iidaysanayaa fursad cid walba oo barnaamij muxuu ahaa maalgashiga wadda waxaa looga baahan yahay sharciga shuruucda deegaanka Puntland inay waafaqdo kuwaas oo aan meel kale ka imaan oo ah shuruucda caalamiga ah kuwa laga soo guuriyay marka aad baan mahadsantahay